السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتين با كاني واسوق اللباد إيوين مقالة هرقيسة سوقا waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad u baahato suuqani waxa uu isugu jiraa laba suuq oo qaybta dhinaca koonfurta xigta waxa la dhahaa Gobanimo halka qaybta dhinaca waqooyi xigtana la yiraahdo idaacada maadaama uu dhabarka ku hayo deyrka idaacada radio Hargeysa waxa uu ku yaalaa degmada 26 Juun oo dhacda jihada waqooyi ee caasimadda Hargeysa suuqani waxa uu caan ku yahay waxa kamid ah khudaarta wadaniga ah ee dalka ka soo go'da oo aad looga helo aadna looga keeno beeraha dhinaca galbeedka waqooyiga iyo barigaba magaalada Hargeysa suuqada lagu iibiyo alaabta qurxinta guryaha ee home decorationka amba qurxinta guryaha sida furniture-ka ayuu suuqani caan ku yahay oo suuqyada magaalada oo dhan uu kaga horeeyaa suuqan waxa la oran karaa waa mid aad ka heli karto wax kasta oo u baahato sida khudaartii caanihii dharkii wax kasta oo ganacsi suuq la dhigaa ayaa laga heli karaa suuqan xataa xoolihii ayaa laga heli karaa oo waxa ku taala saylad yar oo ariga lagu iibiyo oo iyana suuqan ku taala waxyaalaha maalmahan suuqa laga xusi karo ee xiisaha aan ku soo arkay suuqan waxa kamid ah inuu xabxabku aad u soo go'ay raqiisna uu noqday halkii ugu hooseysana uu gaaray aawud dadkuna ay gaadheenba heer ay isku shiidaan suuqani waa suuqii markii uu gubtay suuqii weynaa ee waaheen sanadkii 2021 ay dadka reer Hargeysa ku baxsadeen oo sagaalka degme ee caasimadaba ay u soo adeeg tagi jireen amba ay u soo adeeg tagaanba sidoo kale suuqan qaybta koonfurta xigta magac kalena waa loo yaqaanaa oo uu caan ku yahay oo ah suuqa xisbiga oo waxa ku yaala guriga qadiimiga ah ee dawladda kacaan ku dhistay 80-aadkii oo la dhaho guriga xisbiga oo ku yaala meel istaraatiiji ah oo magaalada ka wada dheer gurigan waa mid qabiic ah laakiin loo dhisay mid si aad u qurux badan iyadoo uu 40 sano ka hor la dhisay gurigan haddana wuxuu yahay mid ku yaala meel istaraatiiji ah inkastoo ganacsiyo yaryar iyo waxyaalo kale ay hareeraha ka xidheen oo suuqani aanu banaanayn haddii la dhiso oo la baneeyana uu noqon doono suuq kamid ah suuqyada ugu quruxda badan magaalada Hargeysa dadkii ugu badnaan qaadi lahaa haddii ay dawladdu dhiso lacagna ay ka soo geli lahayd sidoo kale suuqan waxa laga heli karaa suuqyada lagu iibiyo hilibka sida sheegnay caanaha sida sheegnay suuqa bacadlaha sida sheegnay suuqa furniture-ka ee lagu iibiyo alaabta qurxinta guryaha oo uu yahay number 1 suuqyada Hargeysa oo dhan uu kaga horeeyo meheradan oo kale waxa la yiraahdaa Bulayle Furniture amba Bulayle Home Decoration waxay leedahay dhowr qaybood oo isla suuqana oo ay kala leedahay qaybta gogasha iyo qaybta furniture-ka oo ay ku leedahay kornayaasha suuqan iyo gudaha suuqaba waa meherad kamid ah meheradaha ugu waaweyn ee suuqan ku yaala magaalooyin badan oo adeegta sida Jigjiga Jabuuti iyo qaar badan oo Soomaalida oo ay ka iibsadaan alaabta qalabkii u dambeeyay ee furniture-ka iyo alaabta guryaha lagu qurxiyo dhamaanteedba waa meherad kolkaad gasho aad la ashqaraarayso meheradan iyada gudaha ayaan u galnay oo waxaanu duuduubnay alaabteeda quruxda badan ee muunada u taala face-ka hore ee dukaanka amba meheradaba waxaan leedahay saynu sheegnay 3 ilaa 4 qaybood oo isla suuqan ku yaala oo ay taalo alaabtii ugu dambeysay oo alaab waliba ay leedahay meherad u gaara sida gogasha iyo furniture-ka iyo nooc kasta waxay leedahay qayb u gaara oo isla suuqan ku taala iyadana haddaad suuqan tagtaan hamoogaanina inaad ka adeegataan oo aad ka iibsataan qalabkii lagu qurxinayay guryaha ee ugu dambeeyay halkana waxa taala xasiidi oo la dubayo wadadanina waa wada dhawaan la dhisay oo aad loo qurxiyay oo suuqan dhaxmarta oo wada aad qurux badan dhirtaana lagu beeray sidoo kale
sirogan amba argadan la qurxiyey waxay kala qaybsaa labada suuq ayay u dhaxaysaa dhinacan imika ayna kamaradu hayna waxay naga xigtaa kaalintii caanka amba supermarketkii Birta mahadsan